diray wariyahayaga Hanad Cabdi Yuusuf oo ku sugan Afmadow. wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa isbitaalka degmada Afmadow ku wareejisay shaqaale gaaraya ilaa 10 dhalinyaro ah oo ku soo baxay imtixaan ay qaaday wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda Save the Children. shaqaalahan ayaa ka mid noqon doona kuwa ka howlgalaya isbitaalka degmada Afmadow. ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Afmadow Sheekh Maxamed. ilaahay badbaado iskale alla wax badbaadiya waad ogtihiin laakiin qof hadii mar uu caafimaad u yahay wuxuu ka baxay maxallo siyaasad maxallo wixii male kibir male isqadqaad male wax kasta male meel ur ah geli dhaawac dhig farah la geli ku caloos dabta la geli ku shubanka xalka daadinay la geli ku oosi ka daadinay la geli faan male qof haduu mar caafimaad oo noqdo waa barcad. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha amniga degmada Afmadow Sheekh Cali. nimanka kala garanayna maaha maartay waxaan filaynaa inuu yahay imtixaanun nin walba aqoontiisa iyo maartay cadaaladiisa lagu soo xulay waxa la idinka rabaa marka mar haddii aad isbitaalka degmada Afmadow aad u yeelataan intiina nasiib inaad idinkana waajibaadkiina maartay ka soo baxdaan maadaama waxaan reer Afmadow loo keenay dadka la daweynayo maartay xanuunsan ay reer Afmadow yihiin ina maartay idinkana maartay waajibaadkiina saarnaa aad ka soo baxdaan waxaan mahadsan yihiin wasaaradda caafimaadka Jubbaland iyo hay'adda Save oo maartay juhdi ku bixiyay in isbitaalka Afmadow ay dhaqaajiyaan isbitaalkuna in badan maartay baahidiisa laga hadlay maartay shayba ilaahay sababay in maartay loo imaado inkastoo isbitaalkana hore u wareejinay Save bishii saddexaad. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay kana warbixiyay sida uu u shaqeeyo isbitaalka degmada Afmadow agaasimaha isbitaalka degmada Afmadow Dr. Xasan Mursal. dowladda Jubbaland wasaaradda caafimaadka Save Children way naga sabood garaynaysaa mushaarka iyo daawada iyo nutritionka. horta taas waa inaad ogaataan qof walba waxaad u shaqaynayso ee adigu laftaadu tahay waa dowladda Jubbaland wasaaradda caafimaadka rulka and regulation ama sharciyada ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay kana warbixiyay shaqaalahan iyo qaabka ay ugu guuleysteen imtixaanka Maxamed Xasan Xiray. hadda shaqaalana waa loo qaatay wasaaradda caafimaadka mas'uul ay ka tahay hay'adda support garaynayo Save Children ku jirtaan waa jiraan dhaqan degmada Afmadow iyo hareeraheeda isbitaalkaas ay iman karaan wixii xanuun ay u dhimanayaan waxa ay ka qaadan doonaan haddii la yiraahdo dawo bilaash oo lacag bixinaynin xilli kasta habeen iyo maalinba way iman karaan oo ka maqnaan malayada waxa ka maqan wadada ma jiraan ma haddii dadka maqayay mayna noqoteen marka waxay la tahay hawsha inaan wada istaagnay hadda kadib dadka degan laftiisuna oo isqaabo hadda kadib saan Afmadow dheeraheeda iyo dhulka baaxadda weyn ay sheegnay aan u horumarin lahayn kan kor ugu qaadi lahayn aqoontiisa kor ugu qaadi lahayn aan ka wada shaqeynaa haddii Allah idmo. wassalaamu alaykum. Hanad Cabdi Yuusuf TV-ga raadiyaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland degmada Afmadow.